iyadoo isbuuc aynu soo dhaafnay uu dagaal ka dhacay deegaanada Dhumay iyo Dabataag ayaa waxaa soo gaaray wafdi nabadeed oo ka kala socota magaalooyinka Laascaanood iyo Werwer. waxaa wafdidaasi oo ku kulantay magaalada Dhumay hogaaminayay Sheekh Albaladka gobolada SSC Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed Yuusuf iyo Garaad Cabdilaahi Maxamed Guuleed oo kamid ah isimada gobolada SSC. wafdidan ayaa waxa ay deegaanka Dhumay ay kula kulmeen odayaasha iyo waxgaradka beesha Khayr Cabdi ee Qayaad, waxayna isla qaateen inay joojiyaan xabadda isla mar ahaantaasina ay qaataan nabad. ugu dambeyntii wafdida hogaaminayo Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed ayaa waxa ay u gudbeen dhankaasiya magaalada Kalabaydh, iyadoona odayaasha waxgaradka cuqaasha iyo jiifka guud ee beeshaasi harsame geestooda ay ballan qaadeen inay dhinacooda ka beel ahaan ay ka shaqeynayaan nabadda kana hortagayaan wax kasta oo sababi kara khasaare. ergadii nabadeynta labada beelood Bahar Same iyo Khayr Cabdi oo ilaa iyo shalay ku sugnay Dhumay ilaa Kalabaydh inta u dhaxaysa runtii ergadaas oo ka kala timi Laascaanood iyo Werwer oo ku kulmay halkan oo Dhumay ah. runtii ilaa shalay waxaa noo qabsoomay wax weyn oo runtii Ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu mahadnaqo. waxaan la kulanay beesha Khayr Cabdi oo aanu Dhumay kula kulanay. waxaan isla qaadanay in xabad joojin la sameeyo iyo in nabadda laga shaqeeyo iyo cid walba wixii ay maaragtay mas'uul ama ay ka tahay maadaama magaalooyinka qaarkood lagu kala qaxay in la badbaadiyo oo la nabadgeliyo. qolada kale Bahar Same waxaan ugu tagnay Kalabaydh, xalay baanu joognay. waxaanu la kulanay cuqaashii beesha iyo culimadii iyo codkarkii iyo waxgarad badan. waxaanu iyana isla qaadanay in nabadda la qaato oo laga shaqeeyo. waxaanu dhammaantoodna isla qaadanay in muddo 5 casho ah qolo walbi ay isa soo habayso oo istoonato sidii markaa hawlaha kale loogu gudbi lahaa, nabadana ay ku xakameeyaan cid walba ay isxakamayso oo ay xoojiyaan. inta aanu ku kulanay ilaa iyo hadda aanu maraynaa halkaa weeye. iyo Werwer oo shalay ka howl bilowday magaalada Dhumay, xalayna joogtay Kalabaydh sida ay garaadka iyo khiyaarta kale ay sheegeen. wax badan baa u qabsoomay. waxaa halkan markaan nimid koleyba xaalad laba filaan ah dhacday. labad hore u xidhantay oo meel fiican soo gaadhay ayaa si laba filaan ah fakashay ama shil waxaynu ku tilmaami karo ayaa dhacay. shilkaas inuusan dhibasho iyo waxyaabo khatar oo aad iyo aad fool xun oo si degdeg ah u dhacay oo meesha ka dhacay. arrinta halkaan lagu xakameeyaan u soo gurbanay. meel fiican bay maraysaa. 3 qodob baana hawshayadu hadda ay ku urursan tahay. kow, in xabadda la joojiyo, nabadana laga shaqeeyo. qodobka labaad, qolo waliba meesha ay joogto ama deegaanka mas'uul ka tahay hantida iyo wixii kale oo meeshaas ku sugan iyo bini aadan inay badbaadiyaan. nabadgelyadana ay ka mid tahay adkeynteeda. ta saddexaad, qolo waliba inay diyaar garowdo ciddii xaajo u geli lahayd si hawshan bartii ay ka leexatay loogu soo celiyo oo nabadda halkii looga sii xidho loo wada hadlo. in qolo waliba isdoonato muddo 5 maalmood. waxaan rajaynaynaa arrintaas insha Allah tacaala sidaan rajaynayno isbedel fiican baa muuqda. qolada Kalabaydh waxyaabaha kulay hadda wanaagga ka muuqday waxaa ka mid ah tallaabooyinka lagu ammaanayo ay qaadeen in ciidamadii joogay aagga Dhumay ay ka qaadeen oo Kalabaydh isugu ururiyeen. runtiina waxay taasi na tusisay niyad wanaag iyo xagga nabadda in arrimuhu ay u janjeeraan. ilaahay ha nooga rumeeyo. waxaan anigu aad iyo aad ugu taageerayaa ummadda saxaafadda ay soo gaari karto ama warbixinteeda soo gaadhay inay guud ahaan ka wada qayb qaataan nabadgelyada, sida loo soo dhigay inay ugu taageeraan guddida. horumarka waxa uu lagu gaari karaa iyada oo ismaqal la sameeyo, la wada shaqeeyo, loo kala dambeeyo. cidda beelaha labada reer Maxamed Garaad iyo kale yiraahdo Khayr Cabdi iyana waxaanu jecel lahay in ay soo dhaweeyaan baaqan guddida shaqaysay
isxil saartay in ay si fiican u soo dhaweeyaan oo intaanu la kulannay inta maqan unbaa badane inta maqanna inay soo dhaweyso kuna shaqayso qodobada muhiimka ah ee ay guddidu soo saartay ummadda kale islaamka ama ehelka ama derisyada ana waxaanu ka codsanaynaa guud ahaan haddaanu nahay guddidii in lala shaqeeyo ummadda nabadda ka shaqaynaysa hadday beelaha tahay iyo hadday dadka ehelka ah kala tahay dhammaantood dadka maanta jooga sabanka lagu jiro intiisa badani waxaad moodaa inay caadaysatay inay faa'iido u tahay dadka dhibaatadooda iyo isdilkooda iyo eedayntooda iyo ku farxidooda taasina islaamnimo maaha ehelnimona maaha waxaanu leenahay dadka waxaa ku shaqaynaya ee warka aan jirin faafinaya inay ka waantoobaan tusaale ahaan annagu xalay ilaa maanta waxaanu ku sugannahay jiidihii labada beelood ee walaalaha ah ay mashaqadu ku dhex martay inta badan wixii telefoonna nagula soo hadlaa ilaa saacadda aanu joogno waxay u badan yihiin dad xumaan sheegaya oo annagoo goobtii joogna leh beelhebla ma waxaasa idinku samaysay ma sidaasaa laydiin galay waxaanu u sheegayaa inaan warkaa waxba ka jirin labada beeloodba inay nabadii naga qaateen xabad joojintii naga aqbaleen inay noo fududeeyeen inayna soo dhaweeyeen inay yihiin dad walaalo ah oo ehela oo shaydaan isku diray oo maxaanku idhaahdaa dhibkii kii ka horreeyey uu soo koray oo karay oo bislaaday inay yihiin waxaan leenahay ciddii aan wanaag kaga shaqaynayn ha ka dayso xasarada waxaan kaloo intaa ku darayaa saxaafadda miidiyaha gudo iyo dibad arrintaa iyadaa waxaan ugu baaqaynaa annagoo ah ergadii bilowday hawshaa nabadaynteeda inay dar ilaahay nabad iyo wanaag inay kaga shaqeeyaan jaaliyadda labada beeloodna ee walaalaha ana waxaanu ugu baaqaynaa inay dhaqaalahooda aanay kaga qayb qaadan xabad. Sakariya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News Woodward.